Harakada Shabaab ayaa 45 cisho u qabtay odayaasha iyo ergadii soo xulay baarlamaanka Soomaaliya. Odayaashii ergooyinka soo doortay xildhibaanada ayaa al-Shabaab u qabteen inay isku soo diiwaan geliyaan muddo 45 maalmood gudahood ah iyagoo bilaabay 15 bisha 7 sanada 2019 kuna ega 1 bisha 9 sanada 2019. kadib markii ay sheegeen in odayaashu ay ku dhaceen sida hadalka ay u dhigeen dambi aad al-Shabaab ayaa u hanjabay cid kasta oo amarkaasi ka dhaga cuslaysata isla markaana ka faa'iideysan weyda baaqa ay soo saareen inay ka qaadi doonaan tallaabo waafaqsan shariicada islaamka sida lagu sheegay bayaan al-Shabaab ay soo saareen. dhawaan ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka hortiisa waxay ka cadeeyeen in qaarkooda ergadii soo xushay al-Shabaab ay aadeen. xildhibaan Maxamed Isaaq Afraale ayaa horey u sheegay in ergadii soo dooratay al-Shabaab ay u yeereen deegaan lagu magacaabo Daynunay oo gobolka Bay ka tirsan ay ugu tageen isagoo sheegay arrinkaas inay tahay mid uu aad ula yaabay waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jiray guux ku aadan hadalka ku saabsan in al-Shabaab ay u yeereen ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. laga kaalmeeyo ninkii aad ku kaalmeeyo ninkii aad ku kaalmeeyo in la kaalmeeyo qaybahan nabaddiidka oo dalka ku faafay oo hadda wali wajiyo cusub soo baxay in laga hortago. hadda waxaan maqlay saamaaday in ergooyinkii soo doortay 275 dhammaan goobo looga yeerayo. aniga hadda idin la hadlayo beeshayda ergadii ahayd maanta waxay joogaan ku sugan yihiin idaale meesha looga yeeray. maxaa loogu yeeray aan isweydiin nin kasta oo xildhibaan ergadiisaas loogu yeerayaa. nimayow dadkaas aan u jeesano inaan dalka ka xoreyno aan u jeesano inaan iska qabanno aan u jeesano in dalkeena sidoo haajir aan ku soo celino. waxa nala degay oo halkaana dhigay waa qabiil. shabaab qabiil ma leh asagaba qabiil ma leh maxaa qabiilnimo loogu maciinaya. nimayo waxaan rabnaa inaan nimankaas iyo wixii ka soo halmaalo hal meel looga soo wada jeesto. mudane gudoomiye mudanayaal waa mahadsantihiin. warbixinta iyada waa isku midda oo la akhriyay la mid tahay intaas yana safarkaas gooni galnay iyo wixii aan ku soo aragnay